السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا لهانتين ببرشة كحران كنالك وايشاك وامرك لأيد حانهيني أها بايبالك محاكرون وحان آذوك عدور داران يادب ودعاكو يمد برنامج ديك بحجري كنالك وحان هادا نيمك كسي قادي دونا وراقها ودادة من نقون كران هذلك إلهي بايبالك انتي سبطان وراقو أي قران ودادة كريستانك وراقها تردود وكوبي لباتن صدح iyo 10 kamid ah waraaqaas waxa la sheegaa inuu qoray wadaadka Paulus oo aynu kaga soo hadalnay taxanihiin hore halkaas waxa aynu ka arki karnaa saameynta ay wadaadadu ku dhexleeyihiin kitaabka Bible-ka muran badan kama jiro in afarta buug ee injiilada qayb ka noqon karaan kitaabka balse waxa muran badan ka taagan yahay in waraaqaha wadaadadu qoreen kitaabka Bible-ka lagu daro oo lagu sheego in ay yihiin hadalkii Ilaahay Kristaanku waxay eedeymaha kore iskaga difaacaan in wadaadka sida Paulus ay ahaayeen rasuulo ama kuwa Ilaahay dhiirigeliyay ama u waxyooday sidaasna waraaqahoodu ku yihiin kalimadii Ilaahay wax kasta oo ay qoreen ay yihiin wax Ilaahay ka raali noqday balse cilmiyahano badan ayaa aaminsan in ay khalad tahay in waraaqaha wadaadada laga dhigo hadalkii Ilaahay waxayna sheegaan in ay jiraan dhowr cadeymood kuwaasoo ina tusi kara in waraaqaha wadaadada aysan noqon karin hadalkii Ilaahay cadeymahaas waxaa kamid ah qaar kamid ah qorayaasha ayaa marmar si cad ah waraaqahooda ugu dhex sheega in ay fikradooda ka hadlayaan lambar 2 arrimo shakhsiyadeed oo waraaqaha ka buuxa sida qof loo sheegay inuu jaakad soo qaado salaamo shakhsiyadeed iyo kuwa kale labadaas arrimood hoos baynu kaga hadlaynaa waxaan soo qaadan doonaa wadaadada qaar oo sheegay inay fikirkooda ku hadleen waa run in kitaabka Bible-ka laga helay Paulus oo sheegay in qoraaladiisu yihiin hadalkii Ilaahay balse waxa xusid mudan in meelo ku jira kitaabka Bible-ka laga helayo Paulus oo sheegaya inuu fikirkiisa ka hadlayo tusaale Paulus wuxuu qoraa kuwa kale anigu waxaan ku leeyahay ma aha rabbiga hadduu mid walaal ah uu qabo xaas oo aan rumaysanayn oo ayna raali ka tahay inay la joogto yaanu ka tagin kitaabka Corinthians cutubka 1 aayadda 7 halkaas waxa toos looga arki karaa in Paulus fikradiisa ka hadlay oo waxa uu sheegayaa in aysan ahayn wax Ilaahay ka yimid sida hadalkiisa laga arki karo haddaba sidee macquul ku tahay in hadalladaas kore lagu sheego in ay yihiin hadaladii Ilaahay mar hadiiba qoraagu naftiisa sheegayo in uu fikirkiisa ka hadlayo sidoo kale Paulus wuxuu qoraa waxaan ku hadlayo uga hadli maayo sida Rabbigu doonayo laakiin sida doqonnimo ah iyo si geesinimo faanka ah ayaan uga hadlayaa Corinthians aayadda 11 halkaas wuxuu inoo sheegayaa in arrinka uusan uga hadlin sida Ilaahay rabay balse kaliya uu ka hadlayo fikradiisa iyo suu rabay sidoo kale Paulus oo ka hadlayay in kuwa fikrada ah guursan karaan iyo in kale baa leh amar fikrada ah ku saabsan kama haysto xagga Rabbiga laakiin waxaan kula talinayaa sida mid Rabbiga naxariis ka helay inuu aamin ahaado sida daraadeed waxay ila tahay dhibta haatan joogta aawadeed inay u roon tahay inuu sii ahaado siduu yahay kitaabka Corinthians aayadda 25 waxaa isweydiin leh sidee hadallada kore ee Paulus loogu sheegi karaa in ay yihiin hadaladii Ilaahay hadiiba Paulus laftiisa si cad u sheegay inuu naftiisa ka hadlayo waraaqaha Bible-ka ku jira markaad akhrido waxaad ka dhaxelaysaa hadallo shakhsiyadeed kuwaasoo ay adag tahay in Ilaahay loo tiiriyo hadalladaas waxaa kamid ah lambar 1 Paulus oo baahidiisa ka hadlaya waraaqaha waxa laga dhaxelayaa Paulus oo qof ku leh waxaad ii soo qaadaa jaakadayda markaad soo kacdid ii soo qaad sulugayga aan kaga tagay Carbos oo Troas jooga buugaagtiina ii soo qaad kitaabka Timotheus aayadda 13 halkan waxaynu si cad uga arki karnaa in Paulus baahidiisa ka hadlay aad iyo aad bay u adag tahay in hadalka kore lagu tilmaamo inuu yahay hadalkii Ilaahay laguna daro kitaabka Bible-ka waxa xusid mudan intan aysan ahayn hal meel oo kaliya waraaqaha Paulus oo dhan baa qaabkan u badan sidoo kale Paulus isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu leeyahay igu salaam bariiska iyo Aquila iyo reerkii Onifos Eretos wuxuu ka hadhay Corinthos laakiinse Trophimos oo buka ayaa Mileto uga soo kacay ku dadaal inaad waqtiga qabowga hortiisa ii timaadid waa ku soo salaamaya Eubulos iyo Pudes iyo Linus iyo Claudia iyo walaalaha oo dhan kitaabka Timotheo aayadda 19
hadalladan kore oo ah kuwa shakhsiyadeed waxay ku jiraan kitaabka Baybalka waxaana lagu sheegaa in ay yihiin hadalladii Ilaahay waxaa sidoo kale ka buuxa kitaabka Baybalka salaamo waa run in Ilaahay qof salaami karo balse waraaqaha Pawlos waxaa laga dhex helayaa salaamo shakhsiyadeed oo ay dad isu dirayaan salaamahaas waxaa ka mid ah kaniisadaha Aasiya way idin soo salaamayaan Akula iyo Beriskalina aad bay idin soo salaamayaan xagga Rabbiga iyaga iyo kaniisadaha gurigooda ku taalba walaalaha oo dhamma way idin soo salaamayaan isku salaama dhunkasho quduus ah kitaabka Korintos aayadda 19 ilaa 20 markaad aayadan kore akhriso waxaa si toos ah u arkaysaa in qaybtaas oo kitaabka Baybalka ay tahay salaan shakhsiyadeed oo ay dad isu direen macquul maahan in la dhaho hadalka hore ha noqdo aayado ka tirsan kitaabka Ilaahay waraaqaha Pawlos oo kaliya ma xitaa waxaa laga helayaa waraaqo kale sida anigoo odayga ah waxaan warqadan u qorayaa Gacaliyo Goyos oo aan maanta ku jecelahay Gacaliyo waxaan kuugu duceeyay inaad wax kasta ku liibaantid oo aad caafimaad qabtid siday naftaadu u liibaansan tahay waayo aad baan ugu farxay markii walaalo yimaadeen oo ka marxaati runtaada iyo sidaad runta ugu socotid malihi farxatan iiga weyn inaan maqlo in caruurtaydu ay runta ku socdaan Yohanna aayad 1-4 sidoo kale maca salaameyn baa ah laakiin waxaan rajaynayaa inaan dhawaan ku arko oo aynu afkeena isula hadli doono nabadu ha kula jirto saaxiibadu way ku soo salaamayaan saaxiibada igu salaam mid kasta inaad magaciisa ugu yeedhid Yohanna aayad 14 waraaqda labaad Yohanna ayaa ku bilaabata anigoo odayga ah waxaan salaamayaa marwada la doortay iyo caruurteeda aan runta ku jecelahay keligayna ma ahee laakiin xataa waxaa jecel kuwa maanta yaqaan oo dhan Yohanna aayadda 1 waxayna ku dhamaataa caruurtii walaasha la doortay way ku soo salaamayaan runtii waxaa argagax leh in salaantan shakhsiyadeed ay ku tilmaamaan inay tahay hadalkii Ilaahay sida aynu soo aragno oo aynu ku soo tilmaamnay muuqaaladii kan ka horeeyay kiristaanku ma hayaan kitaabkii asalka ahaa ee ku qornaa luqadii ay Ilaahay iyo Ciise Masiix ku wada hadleen kitaabkaasi wuu dhumay waxa maanta la hayaa waa tarjumaado sida aynu soo aragnayna tarjumaaduhu waxay keeneen dib badan sida ereyo dhowr macno leh oo la isku qalday macnayaashoodii koodii saxda ahaa midda kale kiristaanku waxay waraaqaha iyo hadalladii wadaadada ku sheegeen in ay qayb ka yihiin hadalkii Ilaahay balse sida aynu soo aragnay waraaqaha waxaa ka buuxa hadallo iyo fikrado shakhsiyadeed taasi waxay ina tusaysaa inay khalad tahay in waraaqaha wadaadada lagu sheego in ay yihiin hadalkii Ilaahay diinta islaamku sidaas waa ka duwan tahay midda koowaad hadallada ama qowlka Ilaahay si taxadar sare leh baa loo kaydiyaa waana gaarkooda waxaana lagu kaydiyaa kitaabka Quraanka xataa hadalladii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam laguma daro kuwa Ilaahay gaarkooda baa loo kaydiyaa iyadoo loo yaqaano axaadiis midda labaad hadallada wadaadada hore ee muslimiinta sida saxaabada Abubakar radiyallahu anhu Umar bin Khattab radiyallahu anhu laguma sheego in ay yihiin hadalladii Ilaahay halkaas waxa aynu ku arki karnaa in diinta islaamku kaga wanaagsan tahay diinta kiristaanka xagga kaydinta iyo xifdinta hadalladii Ilaahay waxaynu sidoo kale arki karnaa in eedda islaamka ee ahayd in kitaabka Baybalka uu isbedel ku dhacay ay tahay mid wax ka jiraan maadaama tarjumaaduhu keeneen wareer sidoo kalena hadalladii iyo fikradihii shakhsiyadeed ee wadaadada lagu daray kitaabka Baybalka marka laga yimaado arrimahaas waxaa xusid mudan in kitaabka Baybalka aayado lagu daray kuwa kalena wax laga bedelay arrimahaas waxaynu kaga hadli doonaa taxanooyinka inoo soo socda والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.